في Somaliland حلقة إن حاج إبراهيم عقال جراد جامع جراد علي يركلوا وهليي أي تجان مركز إنجليزكا إسلام مركان الشيو إن حرية Somaliland لسود الدشيو وهاي نقطة وطن كيوجو الرئي Somalida ريتشنيسك Somalida يدكتور حرية كقاطع أما مركزي أفريقيا إنتيرا وضمن يوجو الرئي النقطة جمهورية Somaliland إسلام مركز ناسيدي هرب الله شيء إتكستانا يكدر إكسنتهاي أي تهنيدين يجاو دري تلغرام همبليا أيكو همبليا نيان حرية دبان تاس جمهورية Somaliland أي هالشيء يدولة نمدا يمدح بناني دا أي كهالشيء جمهورية بورتوية إنجليز كا يصير ضدبان ولا تعاملي أرنتاسي صدق يشندل كبعدي وعشان يشند هذا الكم دها والله هي دوكيومنتيس كودي همبليا دا شنطة قلة أمانك كوتشرة أما شنطة في تباور كيس كلامانتا إن مركزي اللي يقانو قلها أمن يقرمن المدني أيها كم دها وعشان مدن ضدك الصومالي دا إنسان هربوا صور شيء ethically culturally وحلينا هذا مع دقنهان يوم هو هاي معاملهان ينرالهان يتاريخهان يعرفتي حقها بفكرك وحي هاي كوكب كالدول وحي آمين سناين ضدك غير Somaliland إن Somali وين لها وحلينا أرنتاسي وحي نقطي مركاسي إن لا أبورو جوي وجدد يسايتاي إن مدني والله دورو مدني والله سي وحي نقطي مدعي سودي runta marka laga hadlo dhinacyo fara badan awgeed sababta isfahan ka labada qolo ama labada dal oo ahaa kii July 1deedii koonfurta markii ay xorowday iyo midnimadii Somaliland ay waxna madax banaanidii Somaliland ay heshay 1960keedii caawinkan oo kale ayaa midnimo markaasi ku dhawaaqay communication kuma wanaagsanayn rabitaanka iyo doonitaanku wuxuu ku badnaa dadka reer Somaliland sababta himiladooda ayaa meel fog gaarsiisnay anyway arrimahaasi waxay keeneen in ay ku halgankaas uu dhicisoobay dawladnimada lagu helay oo midnimadaasi ay fashilantay in dawladdii koonfur qaadatay dastuurkii iyo calankii waxba ay koonfur qaadatay in madaxdii qaranka ugu waaweynada macnaha ahayd koonfur qaadatay in dhibaatooyin fara badan loo geystay dadkii reer Somaliland in dhinaca aqoonta la adeegsaday inay institutionada u maamulaan oo shaqaale u noqdaan dadkii reer Somaliland ee aqoonta lahaa sababtoo ah systematically xagga dawladnimada xataa way ku kala duwanaayeen aqoonta way ku kala duwanaayeen waxaan filayaa sidaan taariikhda ka akhriyay clerkiskii ama dadkii junior clerkiska ahaa kuwii DG-yada noqday kuwii administrationada kala waday dhammaantood inay ahaayeen dadkii systemka Ingiriiska iyo Jamhuuriyadda Somaliland wax ku bartay inay ahaayeen waxaasi ay ahaayeen shaqaale hoosaad meelo hoose loo dhiibay waxaa mar dambe lagu qanciyay in xaaji Ibraahim Cigaal oo ahaa madaxdii ugu mudnayd qarankan maanta jira in loo magacaabay ra'iisul wasaare la siiyo si loogu qanciyo muxuu ahaayay diidmada ka imanaysa Somaliland taasi way anfici weyday waxayna keentay in dhibaatadu ay sii badato in xukun military oo Siyaad Barre nin la yiraahdo uu la wareego meesha isla markaana uu cunhab nidaam cunsuriyadaysan muxuu ahaayay xadgudub xaqa xuquuqul insaanka iyo dhibaatooyin tacadiyaad badan lagu geystay kaasoo inay dhaceen kaasoo dilay 50,000 barakiciyay dad fara badan oo kalena ay ku naafoobeen dhibkii ka dhacay meeshaas waxaa xusid mudan in xaaladdu markay halkaa maraysay arrinta faraha ka baxday ay xiniyo dhawcaaratay yaa markaasi ayna noqotay yaa maali jiray waxaa dhacday inuu samaysmay inqilaab yar oo niman saraakiil ay isku dayeen isla markaana 1961kii markii dadka reer Somaliland ay dastuurka diideen koonfurtu leedahay ay isku dayeen kaasina oo si fudud markaasi ay u fashilmay